بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلامي أصحاب تقاليق دمانتين meel kastoo dunida dacleeda ka joogtaan waxaa idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khayrtayda qaaliga ah mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad waa idin salaamay shacbigayga qaaliga ah maasha allah waa ujeediin maanta yani muuqaalkayga siduu yahay soo maanta iyo markii hore isku muuqaal ma yihiin sababtoo ah intii la socotayna way la socotaa intii kalena maaragtay lama socoto marka khayrtayda qaaliga ah waad aragteen yani in gabadhaas walaashay ay yani video ay iga soo dhigtay oo aan dhehe sawir ay soo dhigtay madaxayga cawradeyda qaawan soo qof islaamana waan ahay yani aada ugu xumaaday soo xitaa ma socon karaysid dadkii waji ma siin karaysid alxamdulilah laakiin aan dhaho ilaa hadda yani waa anoo gurigeyga dhex jiifo cunugkeeda dhabta ku haayo oo maaragtay cunugkeeda dhabta ku haayo oo madaxaygu qaawan yahay sawirkeyga ah ay soo dhigtay ma fahantay markaasna waxaan kala hadlayay video call oo kamerada liigu soo aadiyay iyadana way foolanaysay waxay ahayd aflixay yarisay markay foolanaysay ahayd gabadhaas markaas iiga tagtay ciyaalka igu dhahday ciyaalkan siyahay furdoosay xanuun yara ay haayo maya ima dhihin waxay dhahday furdoosay ciyaalkan ay siyahay furtuun beelo aan waxaan la soo gelayaa in life bas meesha idoo la joogto life ku jirto ay dhahday ciyaalka yani ma kugu ooyeen bas way cayaarooyaan aan dhahay markaas gabaraa taleefonka qabatay kaamirada oo markaas yani nagu aadisay ma fahanteen soo malaa markaas screenshot ka qaatay laakiin sawirkaas haddii aan fikiray oo gabdhihii markaas ila joogay ay soo waceen waxay dhaheen markaas waaye diracaasaa gashneed shumici markaas noo yaalay aan dhahay aa noo yaalay gogashi noo taalay soo cunuga maalow aana dhabta ku haysaa oo madax jarow aa u waday cunugtana madaxa markaan u dabaayo sidoo kaleento saasoo kaleentood ahayd soo ceebna maahan inaa ciyaalaan habaryar ahay aan dhabta ku haayo waana ayaga kuwa aan ka dhaliyay ma fahanteen oo dadkeedoo xaadir ah aniga istaa la jiifay oo maaragtay tiirka aan la cogsanayay la xanuunsanayay saddexda cunuga ani kasoo dhaliyay maasha allah horena waa idinkugu sheegay saddexda cunug baa ani kasoo dhaliyay justii ayna walaashay ahayd anigana iguma jirin wax xumaan ah ma fahantay tan kale ani kumaba mashquulabo mana aamina ani qofaa yani xumaanayso waqtigaa xumaado ma fahanteen qofkan wuu xumaan kariyaa waqtigaa xumeyn karo alxamdulilah so waxaa lahay yani ha ku fogaanin qofka inaa yani qancisid laakiin just inay kaa qanacdo muuqaal ay kaaga qancayso yeelo ma fahanteen marka ani maanta aada u qiiraysanahay aada madaxu ii xanuunaya alxamdulilah hadda laakiin haddaan soo cabiray dhiiggii wixii waan fiicanahay alxamdulilah soo aada iyo aada u xanaaqsanahay wallahi been idiin sheegayay waxaan ahay qof yani madaxeedoo qaawan la soo dhigay meel intaa idinka qancin karan inaa idinka qanciyaan isku dayaya insha allah soo markii meel yara idinka tusina haddii ilaa yiraahdo qoftaas walaashaya ani weligay yani kuma fikirin inaan maaragtay qof i xumeeyay xitaa inaan sirtiisaa banaan keeno macaada laatan ani waa walaashay ma fahantay haddaan wax ka haayana maku saqajaamayo wallaahi wax badan way jiraan laakiin maku saqajaamayo ani waxaas oo haddaa ku saqajaamayo isla maantadii hore soo gelin lahay ma xanuunsan lahayn warwarna misgeli lahayn haddaa yani qof shaydaan haayo ama shaydaan wado ma fahanteen waxaa kuusoo haray ama qof ku daysanayso yani aan damiir lahayn haddii aan ahay mar horaan soo dhigi lahay oo maantaba ma isciileen ani mana xanaaqeen dhiigna ma isku kariyeen so waana dareen kartiin xanaaqa waxa iga keenay madaxaygu qaawanaa meesha lasoo dhigay waa ii shaqayn jirtay waxaas yani iskaga faan يعني waxaad rabtid soo qof u shaqayn jirtay aniga umaba iki alxamdulilah muuqaalkeyga maasha allah shalay qofnimadeeda adoo ii qirsan aan ani adiga youtube isla soo galnay iyadoo qofnimadeeda ii qirsan aan youtube isla soo galnay ma fahanteen oon kareen wato oo la xaysiinayo maxaa kuusoo haray shalay aan yani ka hadlay inaan kareemka ani iska lahaa youtube laiga jabsaday dhibaatada liigu sameeyey aan ka hadlay iyo qofkii igu sameeyey iyo dadkii igu sameeyey so kareemaan ka hadlay aniga nafsad ahaanteedana kama hadlin sawirkeeda ama maaragtay mana raadin bointyaal aan ka haayo ma raadin oo ma soo dhigin ma fahanteen waxaasba kuma fikirin ani laakiin iyadii haddee yani wax ay hubaal ah haysato
kareemka iyo cadeymaha ay ku lahayd way jawaabtiisa ereygan shalay dhahay ma ahan inay sawirkayga oo qaawan soo dhigto so maantana ani ima ceebeysan iyada is ceebeysan so waa qof dumar oo islaam ah anigana qof dumar oo islaam ahay haddii laga soo tago walaaltinimada waxaa kuu soo haray waxaan dhabta ku haayo waa caruurteeda hadday fikirayso qofkaas waa caruurteeda waxaan dhabta ku haayo iyadana foolay ahayd naagtii gurigeeda ku foolatay maysan soo raacin anigaa istaal ku imaaday intaan ciyaalku u dhiibay cid aan istaal ku imaaday ani asaan cunugeeda ugu dambeeyay aan ka dhalin xitaa habeen istaalka iskula qadnay ma fahanteen soo nolosheena markaas anaga waxba isma dhaamin istaalkan iskula qadnay bas iyada umulaha walaahi aada ugu xumaaday qalbiyana u ooyay qalbiyan faamilkeedana wuu joogi faamilkeygana wuu joogi laakiin anigana markaas qofaa uga taga ma haynin gabadhiyo foolanaysa meelna ugama tegi kari cid noo imaadana ma jirin adig taas ka bax calaa kulli xaal qof walaaloo dhib ah isla soo qaybsanay ahayd iyadana sidoo kale arrinta oo yacni turjumaada ah Firdowso wax badan Kenya ma joogto social media kuma jirin aqoon fiican idin malahan umana lihdin way jirtaa Swahili inaan ka seen haddii aan wax ka saayane aniga English ugu jawaab dadka badanaa Swahili ma aqaano so hadda ugu jawaabayani markaan aan istaalka joogno waa mara xaamil ahay oo xanuunsanayo xijaabka gashanayo oo baaritaan aan isku sameynayo so fool camal aan ahay xanuun ayaa i hayay saddex cunugan ka soo dhaliyay ani kuma sheegin fiidiyoona kama duubin maantaasna ani iguma jirin marka haddii uu xanuunku haayane way jirtaa ama dariskaaga ama walaashaa hore u wadanaysaa waan soo kaxaystay iyada dumareedo markaas dad igu dhaweed waan wacday gaariyaan watay waan kusoo maray istaalkaas sidii u tagnay alxamdulilah way ii turjumaysay been maan turjumaadna ceeb ma ahan soo qofka islaamka ah turjumaadan kugu caawinayo ama midka gaalka xitaa kaas horjeedo hadda English ka saysid qofkan oo English ka shan Swahili ka saayo wuu ku sii gudbinayaa codka ma fahamtay taas meeshaas uga har turjumaaduna waa intaas iyo isbitaalka sawirka photoshopka ah kaas aan bali yaabayba waxaas waa wax la soo sameeyay alxamdulilah so iyadoo saas ah yani istaalkeena leedahay wala soo dilay subhanallah weligay xitaa arbaashi xitaa liile ma haweysan alxamdulilah qof waxaan aanay qof kasta iska jeceshay macallin wiilashay la dhashay waalidkeeda walaalaheeda macallin nin iqabay ha ahaado wallaahi nolosha xitaa maartay qof ila haweysato ma jirto sababtoo ah aniga kama bakeensadaba qof yani heer u igu dilo qof hadduu kula dhashtay xitaa maartay just waad hadlaysaa asigana wuu hadlayaa wixii saxa la iskula hadlayaa قف هدو إمادن يعني قفين واي قفين هذا يعني دل مبا مارتي نقنيسو مركي إقرأ لنا مضحى يحنونو آدي هذا مضحى يحنونا يا ما أنتو وحناقصنا هاي so دور مرة فيديو وجرجري مركي هلا يقرأ لنا إن شاء الله هلا يقرأ لنا قضاء هدي إلى إرادة أتكيغن إنو قابين هالقي يابا ولا ليقى قالقا marka arinta yani waxay dhaaday iyadoo la soo dilay oo qanjaha laga soo tumay yani ee ii imaaday okay waan ku imaaday adoo istaali geynaysid ama video taas maxaad iiga hayn weysay ama maaragtay cadeyn ama dad meesha usoo fariisin weysay jiraan so taasina waxba kama jiraan ay kaaga sheekay alxamdulilah intaad arkaysiin oo arkaysiin qof wajigeeda dhaawac soo gaaray xitaa hadda koor muu eki alxamdulilah taas meesheeda uga tag waxaa ku soo haray yani arinta codadka ah أنا ما بعاديسن بعد لصاجر جرجرينا ما آمنسني قفكي آمنسن كل إيدي وتعالى قفكي كلني إنك كجاير بحيان ربا so أنا just وحام فيريا أنا ذاتك قلبي ذا مرة إني يقف أني حمان إيجا آمنتو أنا جن أنك آمنو ما فهمتي أرنت عد كان كل شيء جاية وبيلك أو ده هاي كريمك يعني قف كان العود وقف كان العود مركز أنا إيجا له هلاي ما فهمتي ويقول ده هاي ضد فردوسي qof kasta waxa u malaysaa inay wanaagsan tahay sariirteeda qolkeyga jiifka ku fadhinay aniga iyo ninkeeda iyo iyada ahayn so markaas waa la hadlay wuxuu idhahay ka soo qaad kareemka inta ii imaaday waxay ugu dhaaday Firdowsi Axmed Shafaac wuxuu dhahay waxay lacag aruurisay ha soo sheegto dukaana la furaaya waxaan dhahay markii aniga adinka maran yani aniga Axmed Shafaac maran kala baxnay ma fahamtay ha iga soo dawoodin aan ku dhahay walaaliyaan ku nicin aan ku dhahay Axmed Shafaac dartiisa إنا في تاس مش تقولي نكاس ما عرفت سأو أرجو صنايع أما ما عرفت هالشيء كذي سميه الإيطالة عدينا بدنا واحد وحقوسه هاري قبل ولا شيء إن هذا الكاس نروى مرك وحير إنا إذا كتسيو صو وحولي هاي
مثلا لعبت aniga iskale anigu ila hadlay markaas lacagta ana iskale oo dhahay ma fahanteen maxaa lii jiray caline lacag ku keensaday ma fahanteen adigana kareemkiya leedahay anigu ila hadlay markaas soo anaga meesha waxba kuma lihin adiga iskale dadka gadanayo kala nahay ma fahanteen ilaa wixii adiga fikrad haysid adiga iskale markii ma fahameysaa anigu ila hadlay haduu ida la hadlay ido ka koobinaysi keen leer war dheer oo fasiix ah oo saxii keen leed maanta de jaaniskaas haysato dardaray lahayn soo wax soo jirjira misku keen lahayn bas taas waxaan dhahay intaas hadalka anigu waan dhegeysanay soo waxaan jeclahay respect siinin rag ah hadii uu hadlaayo oon hadalka ka sugan jeclahay xitaa dumar baalaha ka dhigay hadalkana markii la sugo oo yacni qiimo leeyahay qofkan fikradeeda dhegeystid kana ma dhegeysatid maad wixii kaaga soo baxo aada qaadatid waxaa laga yaabaa codkiisa inuu yacni gaaban yahay cidna ilama joogto aada iyo aadna walaahi maanta waan u xanuunsaday madax dhan way xanuunayaa waa iga dareemaysiin alxamdulilah laakiin maanta caafimaadkeyga xoogaa wuuroon yahay jista kiniini madax dejiyaa laysoo qoray intaasna waxaan ka xumaaday ani madaxayga oo qaawan oo social media lasoo dhigay qof islaam ha ahay intaasoo milyana social media ku jirto ma fahanteen intaasoo qofaan haddana qalad iyo arki karto marka inta qalad iyo aragtana haka jaahil baxdo waxaa kaloo idin sheegayaa wuxuu leeyahay yacni kareemka markaas adaa iskale anigii qofkaan lacag bisaan keensanay meesha waxba kuma lihin soo kareemka marka adaa samaysatay waxaa ku samaysatana haysatid anaga markaan lacag wadan oo ku imaanay anagoo kaa iibsano kale lamid tahay ma fahmaysaa saasuu ula jeeday bas hadal kalaa jiro oo idhahaayo xitaa qofka maaragtay oo fikrad markuu leeyahay yacni oo wax soo saaray ama maaragtay uu wax hindisoo kale waxaa jirta naftiisa halis ay gashaa sababtaa ninka oo nuclearka hubka ah soo sameeyaba waa la dilay sax si uuna wadan kale ugu soo sameynin marka waxay ugu dhahay naftaada markasta halis ay ku jirtaa u dhihi jiray qofka nafteeda halis ku jirta anigay ahayd qofka wax kasta lala dabaaciya anigay ahayd ma fahanteen intaasna ani ma sheegan jirin sababtoo ah qofkaa shalay yacni aan social media la soo galno oon dhahay daa is dagaalin xitaa idinna ma heshiisin been maahan idinna ma heshiisin ayaan mar walba iga qaldoomi jirtay mar walbana iida iisoo hoyan jirtay dan anoo meel mar ay igu dhegaysa iskay duubaysaa naa walaasha ahaya ii kaa bedelaayo ee mar walba idhihi jirtay mafahant ana saasa waa iska qalbi jiraxsanay okay aan iska dhihi jiray so ilaa hadeertan heshiiskayga mar walba doontaa ana waxaan diidayaa shalay dhib weyn kugu dhacay wix hore beenay ahaayeen mafahante marka xafisa iga tahay magaaladeeda ayay mataan markasta dhihi jiray shalay ugu dambeysay maanta ugu dambeysay dadaa isoo wacayeen ma garateen marka dhib malaan anila hadda waxba uma qadi waxyaabahaasna animu ku saqajaamayay insha allahu tacaala qof waxaan sumcadeedu intaas ka weyn tahay oo faamila iyo dad ay xushmeynayso ma fahante ani faamila ay dhalay oo yacni iidana waalid u ah oo waxaas maaragtay eena ka suurtoobin iyo wax u dhow anigana maku dhaqaaqi kari sababta inkaar ma qaadan kari mana samayn kari taas anigana qof dumaraa ahay kor dumarna waxaa lahay kab isma dheero horta tan codka intaas idinkaaga jaahil bixiyey tan yacni soosh oo waxa oo la sameeyana meeshaas idinkaaga jaahil bixiyey wejigeyga meel garaa kasoo gaartay xitaa weligiis xitaa uma eko alxamdulilah photoshopna weligoodaa la sameeyaa hebeloowa lagu jir dilaa lagu dhahayaa soo jeexjeexanaa lagu tusiyaa ama gudguduuda ma fahanteen waxaa kuusoo haray arrinta istaalka aan xaamilada ahayne taasi ceeb ma ahan haddii lii tarjumo oon aswaaxili ka seenin tan kale qof xanuunsana iidaaba hadal soo celin karin ma fahmaysaan waa iga dareemaysiin inaan xanuunsanahay marka yacni xanuun maa qabtaa sukar iyo waxaas ii turjumayso ceeb ma ahan xanuuna ahaay markaas hadalka xitaa ma soo celin kari adinka laftirkiina qofki wax dareemi karo wuu dareemayaa ma fahante intaas liisku saaciideeyena ma ahan alxamdulilah shalay markii ayaan iyo aniga abaaya asukaay arkayseene idoo kareem ii haysiinayso waatanaa walaashaya kareemkan soo bidhayso oo yacni muuqaalkaygu qurux badan yahaa aragteen qof shaqaale ah haddii aan ahay anoo shaqaale iiduu ahaa iga arki laheedeen gurigeeda markasta joogo haddaa gurigeeda aan booqsho uga imaadoon joogiyo hadday gurigeyga ilmaha keensatay ee joogtani wax ceeba ma ahayn markaas haddii hadda ceeb laga dhigaayo ma ogi laakiin anigu kama dhigaayo waxaa kuusoo haray mid yarna waa idiin sheegaya haddii yacni gabadhaas walaashay ah xumaan soo wadin ama maaragtay inay xumayso ayna radin ama maaragtay ayna dad hore usoo xumeyn jirin dadaa ay xumeeyey markasta dhahdaa qofka bilaa xumeeye hebelooba xumeeye hebeloo xumeeye haddayna iyada dad hore usoo xumeyn jirin oo caddaynaan ka haaya iyo waxaas aan dhihi jirin inaa aniga isdagaalayn yaa usoo waxyooda ma ilaaha usoo waxyooda oo dhahay waa isdagaal doontiine
cadeymo ka aruuri gabadhan cadeymaha ka aruuri cadeymahaasi maxay yihiin waa sawir anoo madaxaygu qaawan yahay soo aruurisay recording oo yacni laba qof dumar way sheekeysan karaan hoos u sheekeysan karaan waa dareemi kartiin just barnaamij sheegaya qofka qof iigu dhow ayada ahayd ani walaal ii ahayd yacni haddii oo maaragtay aynan igraalna wadada albaabkii soo garaacay so haddii ayna yacni hore dad usoo xumeynin ama ayna wax isku ogeyn maaragtay maxaa yacni ogeysiyey inaan isdagaali doono ay isku dhahday yacni wax aruuri recording ama maaragtay hadal ama maaragtay sawir oo madaxeedoo qaawan iyo xabadkeedoo qaawan firdooso yacni waxaas aruuri ani wax markastaba teleefonkeyga wax kasta dhuman anigana waxaas dhanba ma xiiseeyo just haddaan sawir madaxeygoo qaawan ama qof kaloo madax qaawan teleefonkeyga aan ku arkan waan tirtiraa sababtoo teleefonkeyga ani badanaa ma xafidi kari ma fahanteen sidaas darteed waan tirtiraa waxaa kuusoo haray haddii yacni ayna xumaan maaganeyn oo inay ila dagaali doonto oo yacni dhibaatadan igu sameyn doonto markaas ayna ogeyn yaa ogeysiiyey yacni yaa dhahay sir aruuri qalbiyadeeda maxaa kusoo ridi soo waxay isku ogtahay dad badanay soo xumaysay soo maahan dad badanay soo xumaysay marka maalin kasta qof ay xumeeyo qofkaas marka idaas siga qof soo xumeeyey ma fahmaysan dad badan soo xumeeyey sababtoo ah saana hadda ka dareemi kartiin horta alxamdulilah ani waxaas fadeexad mii naqanayso just laakiin way idhibaysaa madaxaygu qaaban iyo xabadkaygu qaaban in lasoo dhigo social media sababtoo qof islaam ahaan ahay asturan ilaahay ka cabsanayso qof soo dhigana asigaa maaragtay ku dhib qabo aakhire adduunna waa u haystaa ma cafinayo taas maalinta yowmal aakhiro maaragtay insha allahu tacaala oo markaas yacni aanu waalid ka cabsoonaynin oo ilaahayna oo noo kala gar qaadayo waan insha allah u haystaa mana cafinin maalintaasa kula xisaabtamaya sawirkeyga qaawanay maanta soo dhigtay ma fahanteen so marka qofkii qof wanaagsan u haysto waa kaasaa qofkii maanta qof walaashiisa saas ku sameeyeyna idinkana ka daranoo idinku sameynaya ma fahanteen marka waxaan idin leeyahay bini aadam iska daay taleefonkaaga adiga malhido xitaa ha aaminin sawir ha qaadin kaamirana qof ha ka qaban aan ku dhihi lahay sababta screenshot laga qaadaya gurigaaga haddaa joogtid xitaa waxaa waaye xijaabku joog sababtoo hadda xabadkeyga iyo madaxeygoo qaawan sawirka ah gurigeyga gogashaydaan ku jiifaa markaasna waxay ahayd markay gabadheed yarista aflixey ay dhalaysay ahayd gurigeygaan jiifaa xitaa liima qabin ani gurigeygaan joogo qolka aan tu alifka aan degnaa guri aan degnay tu alifka oo gabar habartay dhashay gabar kale isla deganayn aan deganay ma fahanti ee ii keentay ciyaalka igu dhahday gabadhaasaa life la soo gelaya life iyadoo ku jirtaa fool qabatay gabadhaas walaashay ah kaas isoo wacday ciyaalka meesha uga tegay iyagoo timi jiray iyo saaluun anoo kala geeyey isoo wacday waa aaday isbitaalkii markaas sidii kula joogay kumana sheeganayay saddexdeeda cunugna anaa ka dhaliyay alxamdulilah ceebna maahan cunug habarar u ahay anoo dheefsiinayo xabadka iiga jiifo kalgaceeloo iiga jiifaa sax xumaan iigama jiifo ma fahanti maanta wax kale haddii hayn lahayd waxba iima yaraysan lahayn soo qofkii qof walaasheedoo islaam ah oo ciyaalkeedii dhabta ku hayso waa hadda cunugeed ayaan dhashay soomaa waxaan dhabta ku hayo iyo midkaan madaxa u daba ay soo qaadatay waxaasi ma ahan wax fadeexad ah ma fahantay fadeexadna ani ma ii naqanayso inaan ciyaal aan habareeru ahay aan xanaaneeyo soo haddii xanaano adiga aad dhashay ay kaa waayaan aniga waan xanaaneynayaa waalidaan u ahay waajib saaran waaye ma fahantay waajib saaran waaye ceebna ma iigu naqanayso anoo madaxaygu qaawanyo cunugaan habarirtu ahay dhabta ku haayo ceeb ma ii naqanayso marka adiga isfadeexaysatay walaalihiga qaaligan waxaan idin leeyahay insha allah taas ka jaahil baxa arrinta recordinga ah soo haddii wax cadeyna ay hayso oo walaalkeeda sheegaysa lagu diraayo ama wax la dhacaayo wax dhaca waa la yaqaanaa ma ka hadlayo waxaas hadda ani madax xanuunkaasna ma rabi soo jiradan ka qaadaan ogahay inshallah markaa video soo duubay inta dad ani customer ah kulligood way wada qaylinayeen ka bax waxaas gelin sumcadeena ha ku cayaarin warkeena maqal adigana sumcadaada isaga cayaarin liidahay sababta sumcad xumo ay tahay inaan qof usoo jawaabo ani maantana yacni waxaan rabaa just uun dadweynaha social media ku jiro ee wax qaladkaa la tusiyey in aan yacni aan tusiyo waxa saxda ah intaan ka badan idinma qancin karo soo qofkii qof ahaanteeda ku qanci waayo hadal ma ku qancaayo ma fahanteen tan kale qofkii yacni wax oo lagu sameeyey codad lasoo jarjaray iyo sawir lagu sameeyey maaragtay wixii photoshop
iyo maaragtay waxaa cunug ciyaal aan dhabteeda ku haayo qofkii wax u qaatayna sax u qaatane yani hadalkayga qalad يعني هذا الكيجا هذا كان كيجا أو إن شاء الله تعالى أو كبينينا يا وحقيقة أنا قنيصو ننكي يعني دوق له أما مسكح له سقلبيا ودقيست إن شاء الله وأنا إذا جعله دمانتين الحمد لله أنا لي سدعيه إني لو يعافيه أدي هذا مضح يبوخسيا مضح إيه حنونا يا مفاندين قال لي سدعي إن شاء الله تعالى أدي هذاني ومحسنتين marka waxa idin leeyahay telefonka idinka leediin xitaa iska ilaaliya sawirha isaga qaadina gurigaaga aad joogtid xitaa xijaabo waaye ma fahanteen guriga qofka marka waxay sameey rabta maaragtay ay dhahdaa waa liigu sameeyay si yani dadkaas ay waji uga raasato alxamdulillah qof inaan dhibaatay yani weligay niyadeedu kuma soo dhicin tilaabna uma qaadin soo haddaan ani ku fikiro qofkaas waxaas ku soo sameey ilaahay ku untana muxuu sameynayaa adiga qalbiyadaada ka hadal waa bini aadam xuma abuurtay tahay kaas aad sidheys wax ku sameey aan la mid tahay ma fahanti ilaahay ku unta muxuu sameynaya haddaa isdhayd qofkaas waxaas ku sameey haram caleeg idna wax kuma sameyn kari qof kasta waa ani camal ma fahanti marka insha allah tacaala ilaahay xaq hana tusiyo waan idin salaama dhammaantiin si qalbiyana idin jeclahay sawirkayga aragtin insha allah tacaala khayr badan idin dhaafay madaxa xanuunayo insha allah salaam calaykum